أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. قال الشيخ العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى: فصل فيما يفسد به الصوم. فصل هذا متكن فاصل مدوح كلا سارو فيما شيء أي فصل يهي شيء سو يفسد به الصوم صومك وكفساده. ولي شيخ وحا ku dhex jira qaybihii ugu dambeeyay kitaabkii safiinatu najah waa qaybihii ka hadlayay ahkaamta soomka. fasalkan sheekh wuxuu uga hadli doonaa rahimahullahu ta'ala waxyaalaha soomka buriya oo hadii qofka saa'imka ah arimahaas ay ku dhacaan soomkiisii uu ka buraayo. yabdulu sawmu soomku wuxuu ku buraa biriddatin ridoobid ayuu soomku ku buraa. shayga ugu horeeya oo qofka sooman soomkiisii burinaya qofku waa inuu islaamka ka laabto oo uu gaaloobo. qofku asagoo muslima hadduu gaaloobo walciyaadu billaah soomkiisii wuu buray. wa hiya riddadu rujuucun can alislaami ilaa kufrin, waa qofku inuu islaamnimadii ka laabto oo gaalnimo uu dib ugu laabto. hadduu marka qofku gaaloobo asagoo muslima oo sooman soomkiisii wuu buray. waxaydin xaydkii weeye dhiiggii caadadiina wuu ku buraa. waxa kaloo soomka uu ku buraa haweenaydii iyadoo sooman ayaa dhiiggii ka yimid. iyadoo sooman dhiiggu hadduu ka yimaado bis way dhiiggaasina uu yahay xayd soomkii wuu ka buray. wa nifaasin nifaaskii dhiig umuleedkii nifaaskiiyaa ka yimid iyadoo sooman haweenaydii soomkii wuu ka buray. aw amase wilaadatin ama dhalidii haweenaydii iyadoo sooman ayay dhashay, marba haddii ay dhasho soomkii wuu ka buray. wa junuunin waalidii wey, waalidiina wuu ku buraa soomku. qofkii isagoo sooman ayuu waashay oo caqligii uu ka tegey soomkii wuu ka buray. walow laxdatan walow kaana aljunuunu laxdatan, junuunkaas waalidaasi haba noqoto laxdatan ilbiriqsiba ha noqoto, wax ilbiriqsi oo kale ah ayuu waalnaa ka bacdina ilaahay wuu caafiyey subxaanahu wa tacaala. yacni muddo kooban oo aad u yarba ha noqoto muddada uu waalida ku maqnaa, hadduuba caqligiiba uu ka zuulay oo u waashay soomkii wuu ka buray. yacni waalida shardi ma aha muddo dheer in caqligu maqnaado, shardi ma aha. saacado iyo wax la mida inuu caqligu ka maqnaado shardi ma aha. ilbiriqsi xataa haddii caqligu uu ka maqnaado soomkii wuu ka buray. wa biiqmaa'in iqmihii suuxdimihii ayuu ku buraa soomku. qofkii wuu suuxay isagoo sooman ayuu suuxay, isagana wuu ka yacni caqligii qeyb ka mid ahaa tagtay, soomkii wuu ka buray hadduu suuxo qofku isagoo sooman. wa sukrin sakhraamidii ayuu ku buraa soomku. sakhraamidii ayuu ku buraa. sukrigaasoo tacaddaa bihi, sakhraamiddaas isagu uu ku tacadiyey. sakhraamidda qofku markuu sakhraamo isagoo sooman oo weliba uu isagu isku tacadiyey, tacaddiga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye isagaa kasuu isku sakhraamiyey oo kasuu caqligii isaga qaado daandaan uu iska dhigo isku sakhraamiyey. hadduu kas isagu isku sakhraamiyuu ku tacadiyey soomkiisii wuu ka buray. marka tacaddaa bihi waxay u taallaa, shardigaas wuxuu u yaallaa sukriga bis. amaa iqmaha suuxdimaha laa farqa fiihi bayna almutacaddi wa gayrihi. qofku hadduu suuxo ama isagu haysi suuxiyo ama isagu maaragtaahay maqaadiir un rabbaani oo gooniya isagoon sababka isagu iska lahayn ha iska suuxo, waa isku mid. yacni laa farqa bayna almutacaddi wa gayrihi. qofka mutacaddiga iyo kayrkiisa farqi kalama lahan suuxdimaha. amaa sukriga sakhraamidda qofku markuu sakhraamayo hadduu asagu isi sakhraamiyo markaasu weeye marka soomku uu ka buraayo. amaa haddii asaga la khasbo, haddii la khasbo la sakhraamiyo, masalan khamradii ayaa lagu khasbay inuu cabo, khamradii ayaa lagu khasbay inuu cabo, saasuu marka sakhraan uu ku noqday, dee soomkii kama buraayo maadaama ikraah uu jiro oo lagu khasbay. in camaa
labadani haddii ay maasheeyaan bimacnaa istaqraqaa labadan oo suuxdimaha iyo sakhraamiddu haddii ay maasheeyaan jamiica nahaari maalinta dhammaanteed hadduu qofku suuxsanaa maalintaasoo dhan uu qofku sakhraansanaa markaas weeye marka soomku uu ka buraayo amaa qofku hadduu saacado yar uu suuxsanaa kabacdina uu soo naaxay soomkiisii waa saxiixoo waa u jiraa haddii sidaas oo kale saacado yar uu sakhraansanaa kabacdina uu sakhraamkii uu ka soo caafimaaday oo caqligiisii uu u soo laabtay soomkiisii waa saxiix oo waa u jiraa marka in camaada waxay u taallaa aliqmaa waasukr wa biiqmaa'in ayuu ku buraa soomku suuxdimihii iyo wasukrin sakhraamiddii sakhraamiddaasoo tacaddaa bihi qofku uu ku tacadiyo asagu caqligii uu iska saaray caqligii uu iska zuuliyey oo sababba asagu uu ku lahaa in camaa labadoodu haddii ay maasheeyaan waa suuxdimaha iyo sakhraamidda jamiica nahaar maalinta dhammaanteed haddii ay maasheeyaanoo yacni maantoo dhan qofku wuu suuxsanaa ama maantoo dhan uu sakhraansanaa markaas wey marka soomku uu ka buraayo amaa saacado kooban haddii suuxdimuhu ahaa ama sakhraanku saacado kooban uu ahaa soomkii kama buraayo khilaafsan laakiin waalida maadaama ay sha'nigeedu wen yahay oo caqligii oo dhan qofku hal xabo ku haraya uusan jirin qofku hadduu waasho ilbiriqsiba ha waashee soomka isagu uu ka buri faslun haadaakani faasilun mid wax kala saara fii aqsaami alifdaari afurka qaybihiisii u fasal yahay fii ramadaana ramadaan dhexdiisa la afuro wa axkaamihi axkaami alifdaar afurka axkaamtiisiina waa u fasal sheekhu fasalkan wuxuu uga hadli doonaa raximah اllahu tacaala dadku marka ay ramadaanka afuraan oo sababo kala duwan iyo asbaab kala gedisan ay dadku u afuraan afuriddaas ramadaanka la afuray xukumka uu iska yeelanayo afuriddaasi xukumka uu yeelanayo iyo qaybaha afuriddaasi ay u qaybsamayso alifdaaru afuridda fii ramadaana ramadaan dhexdiisa la afuro arbacatu anwaacin afar noocood afuridda dadku ay afuraan oo sababo kala duwan ay u afuraan ramadaanka kulli waxaa lagu soo koobaa afar shay waajibun afurid waajiba oo qofku inuu afuraba ay waajib ku tahayoo hadduu yidhaaho waan soomi oo soonkaygaan wadan hadduu yidhaaho dembi uu ku dhacayoba waa nooc waajibo in la afuro ay waajib tahay qofkii ramadaan jooga ayaa haddana sharcigu wuxuu waajib uga dhigay inuu afuro wadaalika kamaa ayiladii kii oo kale habata sugnaaday fi lxaa'idi waannufasaa gabadhii xaydka qabtay iyo wanufasaa'i tii nifaaska qabtay oo dhiig umulaadka qabtay sha'nigii ku sugnaaday oo kale oo gabadhu haddii ay xaa'ido tahay oo xaydba uu ku dhaco inay afurto waa waajib hadday tidhaaho waan iska dadaaliyo oo ajiraan iska raadsanoo xaydba ha igu dhaco hadduu doonay waa soomi hadday tidhaaho waa xaaraan dembigii ku dhacday gabadhii nifaaska uu ku dhacay oo dhiigumulaadku ku dhacay iyadana ramadaanka inay afurto waa waajib haddii ay tidhaaho dhiiggiioo socda oo nifaaskiioo iska socda ayaan iska cibaadaysan oon iska dadaaliyo waa iska soomi ay tidhaaho dembigii ku dhacday wa jaa-izun afur bannaan ifdaar jaa-isa afur iska bannaan oo qofku hadduu rabana oo sharcigu khiyaar uu siiyey hadduu doonana ramadaankii uu soomi karo hadduu doonana iska dhaafi karo khiyaar qof la siiyey wadaalika kamaa ayiladii sha'nigii oo kale habata sugnaaday fi lmusaafiri waalmariid qofkii musaafirka ahaa iyo kii xanuunsanaa sha'nigii ku sugnaaday oo kale qofku hadduu musaafir yahay lababa way u bannaantah inuu soomana way iska bannaan tahay oo uu iska dadaalo waxaa kaloo u bannaan inuu iska afuro oo qofka musaafirka ah inuu afuraahi waajib kuma ahan hadduu doono soomkiisii wuu sii wadan karaa laakiin yaa u fadli badan qofka musaafirka ah ma inuu soomaa fadli badan mise inuu afuro ayaa fadli badan waxay ku xidhan tahay dhibaatada uu kala kulmaayo safarkiisa hadduu safarka dhibaato xoog leh kala kulmaayo oo naftiisii dhibaataynaysa waxaa u fadli badan markaas inuu iska afuro haddii laakiin dhib weyn uusan safarku ku haynin oo safar iska baabuur iska qaboowo mukayafkiisu u shidan yahay oo wax maaragtaahay dhibaataaba aysan jirin uu ku safraayo
ama diyaaradoo kale uu ku safraayo oo wax mashaakila uusan haysanin waxaa wanaagsan markaasoo kale inuu soomo marka mar walbaba xagga afdaliyada iyo fadli badidda waxay ku xihan tahay xaaladda musaafirka iyo duruufaha markaas uu ku safraayo duruufihiisay ku xihan tahay duruufta uu ka safraayo hadday tahay duruuf iska qabow iska degan jawigiisu iska degan yahay musaafirkaas waxaa u fadli badan u ajir badan inuu soomo haddii laakiin mashaqo iyo dhibaato iyo duruuf adag uu ku safraayo waxaa fadli badan inuu iska afuro walmariidi kii xanuunsanaa isagana afurkiisu waa jaa-is uu iska bannaan yahay qofku hadduu xanuunsan yahay hadduu yacni iska dulqaato oo iska soomana oo iska adkaysto way bannaanta waxaa kaloo bannaan inuu iska afurana iyadana way bannaan tahay maadaama loo cudur daaro macduur uu yahay walaa mid aan waajib ahayn afur aan waajib ahayn walaa jaa-is walaa muxaram walaa makruuh walaa manduub intaasoo dhan uu kulmina walaa afur aan waajib ahayn walaa jaa-is aan bannaanayn walaa muxaram xaaraamna aan ahayn walaa makruuh karaahiyana aan ahayn walaa manduub sunnana aan ahayn wax lagu sheegaba yacni xugum islaamku uusan ka dejin wuxuu yahay ma lahano maxaa ka mid a wadaalika kamaa ayoladii sha'nigii oo kale habata sugnaaday fi lmajnuuni kii waalnaa sha'niga ku sugnaaday oo kale qof waalan oo ramadaanba iska waalan dee waaba marfuuculqalam weye wax loo qoraayo ma jiraan maadaama marfuuculqalam yahoo sharcigu uusan qofkaas la xisaabtamaynin maxaa wax lagu sheego sharcigu uu ku sheego maba jiraan markaasoo qofkiiba xisaatanba ma gaarin meesha manaadu takliif meesha la yidhaaho oo shareecadu ay qofka kala hadasho oo shareecadu ay qofka ka tidhaaho waxbaa kugu waajibay ama waxbaa laguu sunneeyaa ama waxbaa xaaraam kaa ah ama waxbaa karaahiye kaa ah waa xaggee meeshaas lala hadlaayo waa caqliga wey manaadu takliif waalcaqlu meesha shareecadu ay kaala hadlayso waxna ay kugu waajibaan waxna ay xaaraam kaaga noqonayaan waa caqliga qofkani marka waxaa ka baxay manaadu takliifkii meeshii sharcigu uu kala hadli lahaa oo caqligii ah ayaaba ka baxayba qofkan waa iska waalan yahay idan marka sharcigu wuxuu qofkaasoo kale u yaqaan marfuuculqalam oo qof aan waxba loo qorayn kaasoo kale marka afurka uu afursan yahay waa waajibna lama dhihi karo waa xaaraam lama dhihi karo waa jaa-is lama dhihi karo waa sunno lama dhihi karo waa makruuh lama dhihi karo waxaa la leeyahay keliya waa shaksi marfuuculqalam waxba loo qori maayo wa muxaramun mid la xaaraam yeelay afur xaaraam ah waa qof inuu afuro ay xaaraam tahay wadaalika kaman shaksi oo kale wey shaksigaasoo akhara dib dhigay qadaa'a ramadaan qadihiisii ayuu dib u dhigay maca tamakunihi shaksigaas suurtagalkiisa micigiisoo alqadaa'a qadihii uu suurtagal u noqday wuxuu makansaday qadihii inuu soo qadeeyo jaanis iyo waktigii u helay mana soo qadayn xataa intiiu dib u dhigay xataadaas waxaan ku tacalujinaynaa akhara kaman akhara dib u dhigay xataa intiiu dib u dhigay qadihii daaqa alwaqtu waktigu cidhiiri uu noqday canhu can daalika alqadaa qadahaas xaggiisa uu waktigu cidhiiri ilaa uu ka noqday qofka noocaas oo kalea inuu afuro waa xaaraam qofkan muxuu yahay waa qof tusaale ahaan ramadaankii lasoo dhaafay ayaa mihaal waxaa looga lahaa 20 maalmood ayaa lagu lahaa bilihii ramadaanka ka dambeeyey oo dhan jaanisuu haystay caafimaadaa ilaahay siiyey kulli wax celinayay ma jirin oo soomka ka celinaya inuu soo qadeeyo ma soo qadayn waa iska fududaystay bishii waxaa ku dhalatay shacbaan ramadaankii kalea soo dhow bishii shacbaan waa ku dhalatay 10keedii ugu dhammaaday 20kii dambe oo shacbaana lagu jiraa ewelna kii hore maxaa looga lahaa 20 maalmood 20kaas maalmood oo ramadaan ka dhiman oo weli aan ramadaankii la gaarinoo 20ka maalmood oo ramadaan ka sokeeya inuu afuro waa xaaraan leanna waxa weeye waa qof waajib lagu leeyahay fursad kalena ma haysto waktigiina waa cidhiiri fursad kale ma haysto qofkaasi inuu afuro waa xaaraan hadduu 20kaas maalmood isagoo wax cudurdaara aan lahayn uu iska afuro oo ramadaankii kale saas uu ugu yimaado dembiyuu ku dhacay
xaaraan u galay